مشروع wacyigelinta qaadka iyo awoodsiinta dhalinyarada Soomaaliyeed waa mashruuc ay maalgelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Finland iyadoo dhaqaalaha u soo marsiisay hay'adda Puntland Community oo fadhigeedu yahay magaalada Helsinki ee dalkaasi Finland. mashruuca waxa uu Puntland ka bilowday sanadkii 2010 waxaana wada ururka horumarinta aayaha Development Organization aado waxaana mashruucaasi si toos ah uga socda magaalooyinka Puntland ee ay ka mid yihiin Boosaaso, Garowe iyo Gaalkacyo. ujeedooyinka laga leeyahay barnaamijkan waa barnaamij loogu talagalay wacyigelinta iyo cunista qaadka in dhalinyarada laga wacyigeliyo iyadoo loo marayo habab waxbarasho iyo tababaro barnaamijyada dadka ka faa'iideysanaya ugu badan waxaa ka mid ah dhalinyarada iyo haweenka si loo yareeyo kulug lahaanshaha iyo cunista qaadka iyadoo loo marayo habab kala duwan oo ah isdhexgalka dhalinyarada loona abuurayo ciyaaro iyo iyadoo loo abuurayo barnaamijyo xirfado shaqo abuuris iyo xoojinta dhalinyarada dhinaca isdhexgalka wada shaqaynta iyo isu imaanshaha si loogu dadaalo waxbarashada loogana hortago barnaamijyada ku keenaya dib u dhaca dhalinyarada oo ugu weyn yahay barnaamijka qaadka oo ku soo badanaya gobolladeena. dhibaatada uu bulshada uu qaadku ku hayo waxa weeye waa dhibaatooyin aad u badan xagga bulshada haday noqoto bulshada waxa uu ku hayaa lambarkow dhaqaale wuxuu la diriray dhaqaalihii bulshada waxay ku dhacday hal gacana oo hal muxuu ahaa loo diro qurba ina ka foginaga lacagteena ay ku shubanto qoysaskii dhaqaalaha aawadeed way isku wada fureen oo way ku baaba'een waxa kaleeto oo ku dhumay oo halkaas tarantii dadka waxa way furniinkii markuu batana tarantii dadku way yaraanaysaa dhaqaalihiisa qofka uu baaba'aya hadduu qoys lahaa ama rag ahaa ama dumar ahaana qoyskii uu baaba'aya caruurtii ay dhaleen halkaas ay ka baxaysaa marka waxaan oran karnaa xabadda la isku dhufanaya isaga ka daran oo ah xabadii dadka lagu dhufanayay oo si dadban loogu dhufanayay inuu qaadku yahay qaadku dhibaato xoog leh ayuu ku hayaa dhalinyarada weli ma gaadhin halkii ay maskaxda iska xukumi lahaayeen qaad bay iskaga dhaceen marka jirooyin badan ayuu ka qaadayaa qofka dhalinyaradaha qofku marka uu bahalka cuno wuxuu lacag waaya lacag markuu waayana wuxuu geliyaa inuu dadka dhaco dadka hadduu dhacana waxa dambiyaal buu waxay u keenaysaa marka dil bay u keenaysaa inuu naftiisa geliyo khatar bay u keenaysaa waxay u keenaysaa marka dambe inuu siiba kororsado intuu burcadbeed noqdo adduweynaha uu kala qayb galo si uu qaadka u helo cuni lahaa marka dambena qaadka wuxuu sii geynayaa mid ka sii weyn khamri iyo balaayo u geenaya marka waxa weeyaan burcadbeednimada inta badan waxa keenaysaa qaadkaas la cunayo oo maskaxdaadu waa maqan tahay maskaxaadu ma joogtay marka maskaxda darab ku gelinaysa wuxuu leeyahay dhibaato mid muuqata iyo mid qarsoon midda muuqata waa midda bani aadamka oo dhan u muuqata oo qofku nafsiyan dadka qofka qaadka cunaa nafsiyan dadka uu uga liitaa dhaqaale ahaan waa ka liitaa nolol ahaan waa ka liitaa awlaadiisu awlaada dadka aan qaadka cunin waa ka liidataa haweenkiisu haweenka ragga qayila ay qabaan iyo haweenka ragga aan qayilin qaba way kala liitaan noloshaasi waa nolosha muuqata soonina waa qofku adoonnimadii iyo wixii ilaahay u abuurtay iyo cilaaqaadka ilaahay oo uu ka kaxeeyo jaadku iyo caafimaadkiisa oo qofku ah 99% midaan si dhababa la isugu aamini karin wax lala cuni karin waxna lala cabbi karin lana rafiiqi karin qofka jaadka cuna ujeedooyinka gaarka ee mashruuca la doonay in laga gaaro muddada uu socdo waxaa ka mid ah in la yareeyo isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha qaadka iyadoo la dhalinayo shaqo abuur lagu bedeli karo qaadka in la abuuro lana hirgeliyo aqoonta farsamada gacanta iyo tababar ay dhalinta iyo haweenka kaga kaaftoomi karaan isticmaalka iyo ka ganacsiga qaadka in la tababaro shaqaalaha mashruuca wacyigelinta qaadka iyo awoodsiinta dhalinta Soomaaliyeed si ay karti ugu yeeshaan adeegyada mashruuca in la wacyigeliyo lana baraarujiyo dadka u nugul maandooriyayaasha sida ciidamada iyo dhalinta in la dhiso lana fuliyo barnaamijyo ciyaaro iyo madadaalo oo lagu bedeli karo maandooriyayaasha qaadka in la bixiyo adeegyo waxbarasho oo ay dhalinta tacliinta asaasiga ah la baray ay kaga faa'iideysan karaan waxbarashada sare
kuwa isku wadnaha iyo beerka waxaas ka barnaamijkan waa barnaamij runtii aad iyo aad u muhiim uga ah gobolada Puntland gobolada oo hadda ka socdo sida gobolka Bari Mudug iyo Nugaal oo dhalinyaro aad u tiro badan ay ka faa'iideysanayaan dhalinyarada ka faa'iideysanaya tiro badan ay ka faa'iideysanayaan dhalinyarada ka faa'iideysanaya waxa loo furay goobo waxbarasho sida xirfadda kombiyuutarka caafimaadka oo la isdhihi karo haddii dhalinyarada la baro waxay ku heli karaan shaqo ama waxaa loogu abuuri karaa shaqo abuuris si looga leexiyo dib u dhaca iyo barnaamijyada kale oo la xiriira inay tahriibta ay sameeyaan iyo wixii la mid ah waxaan dhigtaa macadka OTTI caafimaadka waxaan ka dhigtaa waxyaabo fara badan sida gargaarka degdega first aid iyo waxa kale yiraahdo waxyaabo badan oo waxa kale yiraahdo waxaana waxbarashadaas aan ka helay ururka aayaha development organization iyo waxa kale yiraahdo Puntland community iyo dowladda Finland aayaha development organization ururka aayaha baa naga bixiya alxamdulillah waa u mahadcelinayaa ururkaas na support gareeya ama waxbarashada naga kaaba waxaan rajeynayaa inaan sii wato waxbarashadayda insha Allah inta aan ka awoodo iyo inta ururkaas ila garab jooga insha Allah cilmiga dhammaan cid iga support gareysay sida ururka aayaha oo kaleeto kaasoo iskaashanayaan dowladda Finland dhammaan qaybta ama dadka iga support gareynaya dhammaantood waan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay idinkana Ilaahay inii fududeeyo waxa rabtaan annagana Ilaahay noo fududeeyo insha Allah waxaan rajeynayaa mustaqbal fiican in aan waxbarasho mustaqbal dambe aan helo midda hadda heerka aan markii hore joogay heer ka sii fiican baan hadda joogaa haddana heerka aan joogo heer ka sii fiican inaan gaari baan rajeynayaa fiican baan maraynaa waxaan iga caawiyey qolada ayaha iyo Puntland Health iyo dowladda Finland ayagana waa u mahadnaqayaa sida ii bareen marka hore aan waxbarashada aqoon ama nidaamkan aqoon waxaan wax ila dhib badan oo ila warar badan baa laakiin haatan wax aad iigu fudud oo macnaha weeyo waxbarashada aan ka raadin karo ama aan ka raadin karo hadda kasii kororsan karo weeyaan ujeedooyinka gaarka ee mashruuca la doonay in laga gaaro muddada uu socdo waxaa ka mid ah in la yareeyo isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha qaadka iyadoo la dhalinayo shaqo abuur lagu bedeli karo qaadka in la abuuro lana hirgeliyo aqoonta farsamada gacanta iyo tababaro ay dhalinta iyo haweenka kaga kaaftoomi karaan isticmaalka iyo ka ganacsiga qaadka in la tababaro shaqaalaha mashruuca wacyigelinta qaadka iyo awoodsiinta dhalinta Soomaaliyeed si ay karti ugu yeeshaan adeegyada mashruuca in la wacyigeliyo lana baraarujiyo dadka u nugul maandooriyayaasha sida ciidamada iyo dhalinta maadada qaadka la yiraahdo waxa ay ka suubsan tahay waa macnaha waa maado markii Yurub la tagay oo la baaray waxa la ogaaday in ay ka suubsan tahay maado la yiraahdo amphetamine ama ay jaallo wadaag la tahay daroogooyinka darooga magaceeda la yiraahdo amphetamine oo macnaheedu yahay inta badan waxa ay dadka bini'aadamka caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo si kastoo loo fiiriyo marxalad kasta oo bini'aadamka ay ku adag tahay macnaha ay ku tahay cadow dib u ah jirka maskaxda dhaqaalaha arrimaha bulshada intaas fiil oo aan idin sheegay qofka bini'aadamka diiniyan xataa waxay waswaas gelinaysaa habkii uu Ilaahay u cibaadeysan lahaa marka waxa isku daydaan haddii ay suurtagal tahay in markii hore aad iska dhaaftaan quraanka iyo xadiiska oo waxyaalo badan oo ku soo dagaya jiraan oo ka sheegay marka waxa isku daydaan maadaama wadanka Soomaaliya aad joogtaan in aad qaadka iyo waxyaalo badan oo daroogaya jira kaliya qaadka kaliya ma ahan wax kasta oo maandooriya inaad ka dheeraataan inaad wax barataan dhammaan waxyaalaha kan mashruuc uu higsanayo waxa ka mid ah in la helo dhalinyaro tababaran oo xirfadlayaal ah kuwaas oo awood u helaya markii ay dhameystaan mashruuca inay loo abuuro shaqo abuuris in la yareeyo cunista qaadka iyo ka ganacsigiisa oo runtii dhalinyarada aad ugu leeyihiin haweenka iyo dhalinyarada iyadana waa muhiim in la helo
dad wacyi gashan oo saamaynta iyo dhibaatada uu ku leeyahay qaadku bulshada kaasoo ragaadiyey horumar badan iyo dhibaatooyin badan ku haya bulshadeena taasaa keentay barnaamijka runtii in la sameeyo ilaa 2014 insha Allah waxaa la doonayaa in la sii wado lagana faa'iideysto casharadii laga qaatay iyo caqabadihii la darsiyo laguna kordhiyo dhalinyaro aad u tiro badan oo ka faa'iideystaan oo haatan diyaar u ah iyaguna inay ka qaybgal wacan siiyaan oo u hanqal taagaya inay helaan barnaamijka xirfadaha iyo waxbarashada inay iyaguna ka faa'iideystaan haween iyo isku jira dhalinyaro